Itoobiya waxay war ka soo saartay ciidamada Suudaan oo ay sheegtay inay ku soo durkeen deegaano ka mid ah xadka ay wadaagaan labada wadan ee gobolka Fashqa. Xukuumadda Addis ayaa Suudaan uga digtay in ciidamadeedu ay gudaha u galaan dhulka Itoobiya. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Itoobiya ayaa xusay in dawladdiisu ay qaadi doonto duulaan haddii aanay ciidamada Suudaan ka laaban howlgallada ay ka wadaan gobolka. haddii ayna Suudaan joojin dhul ballaarsiga ay ka wado cariga Itoobiya waxa lagu khasbayaa inay tallaabo jawaab ah qaado, ayuu yiri Danjire Dina Mufti, afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Afhayeenka ayaa inkasta oo aan xusin wuxuu dhinac saddexaad ku eedeeyay in Suudaan uu ku riixayo inay ku durugto dhulka Itoobiya, waa sida uu hadalka u dhigay. Dawladda Itoobiya ayaa aaminsan in xiisadda Suudaan iyo Itoobiya ay dabada ka wado dawladda Masar, sida ay sheegeen ilo u dhundaloola dawladda Itoobiya, balse ma jirto caddayn loo hayo in Masar ay lug ku leedahay muranka ka taagan xadka Itoobiya iyo Suudaan. Masar waxay ka soo horjeedaa dhaamka weyn ee lagu bixiyay $5 bilyan ee Itoobiya ay ka binaysay meel aan ka fogeyn xadka ay Suudaan la wadaagto. Taliye sare oo u hadlay ciidamada Suudaan ayaa maalin ka hor xaqiijiyay in ciidamada dalkiisu ay la wareegeen deegaano hoos yimaada Al-Fashqa kana saareen ciidamada Itoobiya. Addis iyo Khartoum waxay ku heshiiyeen in khilaafka xadka la dhameeyo, balse weli dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka jira gobolka Al-Fashqa. Khadar Hayba, Saab TV. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom.